Assalaamu calaykum. Ciwaankeena maanta wuxuu ku saabsan yahay xanuunka qabsinka ama appendicitis. Waxaan ku soo qaadan doonaa waxa sababo iyo calaamadihiisa iyo sida loo daaweyn karo haddii aad doonaysid ka bogasho wacan. Ugu horeyn, waa maxay appendiciska? Waxaan filaa af Soomaali ahaan in lagu dhaho qabsinka. Waa maxay qabsinku? Qabsinku waa kiish yar oo u eg sida farta oo kale oo ka soo baxsan cecumka oo ah bilowga mindhicirka weyn. Shaqadeeda sida saxda ah gebi ahaanba ma cadda, laakiin waxaa loo malaynayaa in ay door muhiim ah ka ciyaarto habka difaaca jirka, gaar ahaan nolosha hore, micnaha carruurta marka ay yaryar yihiin. Appendicitis waa caabuqa ku dhaco appendixiska ama qabsinka. Sidaan hore usoo sheegnayba, waa meel yar oo u eg sida farta oo kale oona ku dhegan mindhicirka weyn. Waa xaalad caafimaad oo degdeg ah oona u baahan qaliin si looga saaro appendiciska amaba qabsinka. Maxay yihiin sababaha keena qabsinka? Sababaha saxda ah ee xanuunka qabsinka ama appendicitiska badanaa lama garanayo, laakiin badanaa waxaa lala xiriiriyaa obstruction ama xiranka ku yimaado appendiciska ama qabsinka. Sababaha caadiga ah ee xiranka ama obstructionka keena waxaa ka mid ah saxaro adag oo xanibta appendiciska ama qabsinka. Sidoo kale caabuqyada bakteeriyada iyo fayraska waxay u horseedi karaan in ay infection ama caabuq ku samaysmo oo sidaas uu ku xanibmo. Waxaa kaloo xanibi kara foreign bodies-ka. Sidoo kale marmar dhidhiif ahna burooyinka ayaa xanibi kara appendiciska. Marka uu appendiciska xirmo, bakteeriyadu way ku tarmi kartaa, taasoo keento cadaadiska oo kordhay, socodka dhiigga oo yaraada, iyo ugu dambeyn waxay keeni kartaa infection ama caabuq in uu ku samaysmo. Calaamadaha xanuunka qabsinka. Calaamaduhu way kala duwanaan karaan, laakiin sida caadiga waxaa ka mid ah calool xanuun. Badanaa wuxuu ka bilaabmaa agagaarka xundhurta, kadibna waxa uu u wareegaa caloosha qaybta hoose, khaasatan dhinaca midig. Xanuunku wuxuu noqdaa mid fiiqan oo joogto ah. Sidoo kale lalabo iyo matag caadiyan waxay la socdaan xanuunka caloosha. Ka go'idda cuntada waa mid ka mid ah calaamadaha ugu horeeya. Qandho, xumad heer hoose ah ayaa laga yaabaa in ay isku arkaan bukaanka. Sidoo kale isbeddel ku yimaado caadooyinka mindhicirka ayaa dhici kara, sida calool fadhi ama shuban. Xanuunka ayaa kasii dari kara dhaqdhaqaaqa, qufaca ama hindhisada. Sidoo kale danqasho oo ka dareema qofka dhinaca hoose ee midig ee caloosha oo markii laga taabtaba uu ka danqanayo. Ogaanshaha cudurka qabsinka. Si loo ogaado cudurka qabsinka ama appendicitiska, waxaa loo baahan yahay baaritaanka jireed. Dhakhtarka ama bixiyaha daryeelka caafimaadku waxa uu eegi doonaa danqashada caloosha qaybta hoose, khaasatan dhinaca midig, waxaana laga yaabaa in uu sameeyo baaritaanada kale. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay tijaabada sawirada ama image testiska. Ultrasound oo badanaa loo isticmaalo gaar ahaan carruurta iyo haweenka uurka leh si loo arko caabuqa ama dareeraha agagaarka appendiciska. Sidoo kale CT scan ama computed tomography wuxuu bixiyaa sawiro tafatiran, wuxuuna aad waxtar ugu leeyahay ogaanshaha cudurka appendicitiska. Sidoo kale ha ka reebin MRI oo ah magnetic resonance image. Iyadana mararka qaarkood waxaa loo isticmaalaa haweenka uurka leh si looga fogaado shucaaca. Sidoo kale waxaanan meesha ka marnayn tijaabada shaybaarka oo ah laboratory test. Tijaabada dhiigga waxa ay muujin kartaa calaamadaha caabuqa sida kor u kaca tirada unugyada dhiigga cas. Daaweynta cudurka qabsinka. Daaweynta asaasiga ee xanuunka loo yaqaano appendicitiska ama qabsinka waa appendectomy, kaas oo ah qaliin lagu saarayo appendiciska oo dhan. Waxaa jiro laba nooc oo waaweyn oo loo sameeyo appendectomy-ga. Nooca koowaad waxaa loo yaqaanaa open appendectomy oo ah appendectomy furan. Waxaa jeex weyn lagu sameynayaa caloosha. Habkani hadda aad uma badna, laakiin waxaa laga yaabaa in uu daruuri noqdo xaaladaha marka ay adag yihiin. Nooca labaad waa laparoscopic appendectomy. Waxa uu isticmaalaa jeexyo yaryar ah iyo kaamirad si uu u hago qaliinka. Habkani guud ahaan waxa uu keenaa xanuun yar iyo soo kabasho degdeg ah. Daawooyinka antibiyootika ayaa sidoo kale la siiyaa si loo daaweeyo ama looga hortago caabuqa xaaladaha qaarkood oo aanan wax dhibaato ah kasii dhalanin. Antibiyootika keliya ayaa la isticmaali karaa, laakiin qaliinka ayaa badanaa ah daaweynta saxda ah ee looga hortagayo soo noqoshada cudurka. Daryeelka iyo soo kabashada qaliinka kadib. Bukaanada badankoodu waxa ay joogaan isbitaalka 1 ilaa 2 maalmood kadib qaliinka laparoscopiga, halka qaliinka oo furan ay joogayaan intaa wax ka badan. Sidoo kale xanuunku waxaa badanaa lagu maareeyaa daawooyin. Sidoo kale bukaanada waxaa guud ahaan lagu dhiirigeliyaa in ay dib u bilaabaan dhaqdhaqaaqyada caadiga ah si tartiib tartiib ah oo ay raacaan cunto gaar ah ilaa ay si buuxda ugu soo kabanayaan. Dhibaatooyinka ka dhalan kara xanuunka qabsinka haddii aan la daaweyn waxaa ka mid ah perforation ama in uu duleelsamo. Appendiciska ayaa qarxi kara, taas oo keento peritonitis-ka ama caabuqa ku dhaco xuubka caloosha, taasoo ah xaalad halis ah oo u baahan daaweyn degdeg ah. Sidoo kale abscess formation, in ay malax ku samaysmato. Fahamka xanuunka loo yaqaano appendicitiska ama qabsinka
ayaa muhiim u noqon kara ogaanshaha degdega ah iyo daaweynta yareynta khatarta dhibaatooyinka daran. haddii aad ka shakisan tahay xanuunka loo yaqaano appendicitis-ka, waa muhiim in aad si degdeg ah u raadsato daryeel caafimaad. Muuqaalkeena halkaas ayuu ka egyahay. Waxaa inoo balana muuqaalada xiga hadduu alla idmo. Kheyr badan.